دكتور عيسى كيد يا محمد حاج عثمان waxaan leenahay wasiirada iyadana soo dhawaada hablii dil shaqeynay baanay kaatiintii xisbiga kulmiyaanay garabkiin iyo gaashiyaankiin aanu taaganay qaar kamid ah haweenka xisbiga talada dalka ee kulmiye ee xaafadda Axmed Dhagax ayaa waxay taageero u muujiyeen wasiirada cusub ee wasaaradaha arrimaha dibadda iyo beeraha Ciise Kayd Maxamuud iyo waliba Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac kuwaas oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay wasaaradahaasi waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin uga diraynaa madaxweynaha iyaga Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi aan leenahay aanu ujeedadayadu tahay inaan ku hambaliyeyno wasiirada eeda Dr. Ciise Kayd iyo Dr. Maxamed Xaaji Cismaan aan leenahay madaxweyne wada siibtay halkan aan imika maxaday aanu ka hadlaynaa xaafadda Axmed Dhagaxna waa xaafadii iyadoo magac mugiya miisaan leh ku dooratay weeyaan anagu hadii aanu ka warrano qisadeeda madaxweyne taariikhdayada oo aad baad u ogtay waanad ka warhaysan in loo sheegayo matid taariikhda xaafadda Axmed Dhagax iyo intay ku qaadato garbahaba waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dadkii la soo noqoshadii Soomaaliland dib soo ceshaday waxaanu nahay dadkii dib u dhisidii Soomaaliland dib u dhisay baanu nahay dad waxaanu nahay madaxweynayaal badan doortay waxaanu nahay dad hadii alla ku roon yahay maxaadayeen xisbiga kulmiye ku suntan dad waxaanu nahay 20 sanadood xisbiga kulmiye aha dhanaan uga dhaqaaqay دكتور عيسى كيد يا محمد حاج عثمان waxaan leenahay wasiirada iyadana soo dhawaada hablii dil shaqeynay baanay kaatiintii xisbiga kulmiyaanay garabkiin iyo gaashiyaankiin aanu taaganay madaxweynaha waxaan leenahay habla Axmed Dhagax iyo 31 May way ku garab taagayiin waxaan ku sheegaynaa haddaan hablii Axmed Dhagax nahay hablii xisbigaaga nahay waxaan ku leenahay mudane madaxweyne adiga oo maxaan ku raday ku aan kuugu hambalyeynayna labada wasiir qaaligeed noo magacawday oo laba wasiir nala shaqeyn kara laba wasiir xaafadii iyo gobolkiiba nagala shaqeyn kara Soomaaliland waxa ka bedeli kara oo arrimaha dibadda wax ka qaban kara beerahana wax ka qaban kara laba wasiir baad noo magacawdo fiican Dr. waxaan halkan ka hambalyeynaya madaxweynaha qaranka Soomaaliland ee sameeyay isbedelka sharafta leh ee ay ku suntantii sifaha dawladnimadu waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha degmada Axmed Dhagax ee xisbiga kulmiye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan madaxweyne kuugu hambalyeynaa isku shaanaynta samaysay wasiirada noo magacawday eedahna waad asiibtay ma sha Allah ayagana waanu hambalyeynaa Ciise Kayd Maxamuud iyo Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac ninku garab joogsada lawaa mudane madaxweyne nin kula dhiga lawaa mudane madaxweyne nin qiimahaaga iyo qaayahaaga gaadhaya lawaa waanu kugu ognahay geesinimada raganimada fariidnimada waanu ku haynaa qiimaha leedahay waanu ku ognahay qiimaha leedahay qiimaha qaaliga ah baan kugu raacsanahay kugu taageersanahay kuguna taageeri doona kuguna taageeray marka horena wasiirada qiimaha badan ee qaaliga ah ee noo magacawdayna eedaana waanu hambalyeynaa dhakhtarka iyaga Ciise Kayd dhakhtarka iyaga Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac labadaba aad iyo aad baan u hambalyeynaa in qiimo leh oo qaaya leh oo nu la shaqeyno inaad nooga soo saarto oo aad iyo aad xusbiga kulmiye jeexiisa labada wasiir Ciise Kayd Maxamuud iyo Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac waan hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa wixii kale madaxweyne ilaahay qadarana waad noogu dari doontaa wax kasta qadarka alun bay noqdaan ilaahayna xilka ha u fududeeyo adigana ha ku fududeeyo waa Maxamed Andar telefishinka magaalada Hargeysa.